Masar waxay u taagan tahay go'aan adag oo ay ku ilaalinayso Soomaaliya haddii ay noo yeeraan kama baaqan doono waxaanu ka difaacaynaa cid walba oo ku soo duusha sidaas waxa yiri madaxweynaha wadanka Masar Cabdilfataax Al-Siisi oo uu garab taagan yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laakiin Itoobiya waxay tiri xilligii ay Soomaaliya dhibaatada iyo burburka ay wajahaysay Masar hiil iyo garab midna ma siin laakiin annaga wiilasheeni iyo gabdhaheena ayaa ku dhintay Soomaaliya ayagoo difaacaya Soomaaliya dawladnimadeedana raadinaya sidaasna Itoobiya ku jawaabtay waa laba hadal oo kala fog oo lagu barlaxawsanayo dawladda Soomaaliya oo xilligan ay wajahaysa duulaan dibadda ah wararka kale waxa kamid ah idin hayno dawladda Itoobiya ayaa ciidamo hor leh oo diyaarada wata waxa ay geysay gobolka Gada ee Soomaaliya oo maxay yihiin ciidamadaas iyo warar kale waan idin haynaa qaramada midoobayna waxay soo faragelisay xiisadda badda u dhaxaysa dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaas oo khilaafka u dhaxeeya oo xidigaha la darsay wararkaas iyo kuwa kaleba waan idin haynaa ee soo dhawaada akhyaaray waxaan ku bilaabayaa arinta Masar halkaas oo ay dhaha ku haysay dawladda Itoobiya ilaa iyo shalay isla markaana warar aan farxad gelin Itoobiya ay ka soo baxayeen maalin kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo buuqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Masar halkaasna uu kulamo kula yeeshay dhigiisa wadankaasi Cabdilfataax Al-Siisi ayay dawladda Masar waxay ku dhawaaqday inay garab taagan tahay dawladda Soomaaliya xilli xiisad adag ay ka dhaxaloosan tahay ayaga iyo dalka Itoobiya waa Soomaaliya iyo Itoobiya shir jaraa'id ay si wada jir u qabteen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Masar ayuu Al-Siisi waxa uu ku sheegay inay Masar aysan aqbali doonin xadgudub kasta oo ka dhana Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha Masar ayaa si cad u sheegay inay diidan yihiin is-afgaradkii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ay la dhinac yihiin oo ay taageersan yihiin dhinaca Soomaaliya wuxuu yiri cidna dani uguma jirta buu yiri in la tijaabiyo buu yiri dulqaadka Masar oo loo hanjabo buu yiri walaalahood waa hadal weyn hadalkaasi Al-Siisi isagoo Itoobiya ula jeeday ayuu wuxuu yiri dan uguma jirto in la tijaabiyo dulqaadka Masar ayadoo markaasi loo hanjabayo walaalaha Masar oo ay Soomaaliya ula jeedo ku socdo Masar waxay u taagan tahay bay tiri go'aan adag oo ay ku ilaalinayso amniga Soomaaliya lama ogolaan doono cid dibadda ka ah oo khatar ku ah shacabka Soomaaliyeed ama amaankooda wax u dhimaya waxaan si hagar la'aan ah u garab taagannahay bay dhaheen walaalaheen haddii ay noo yeeraan kama baaqan doono ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Cabdilfataax Al-Siisi oo hogaamiyaha wadankaasi Masar hadal uu boggiisa X oo Twitter loo oran jiray uu soo dhigay agaasimaha madaxtooyada ee Soomaaliya Cabdixakiin Yuusuf ayuu waxa uu ku yiri dulucda shirka waa isdifaac iyo isku tashi madaxweynaha Masar ayaa xusay in xeerka jaamacadda Carabta oo ay Soomaaliya iyo dalkaasba ay xumin ka yihiin waa Masar uu qabo in si wada jir loo difaaco dalalka Carabeed oo ay soo food saartay baa khatar jiritaan isagoona sheegay madaxweynaha Soomaaliya inay diyaar u yihiin haddii ay u baahdaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Masar iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir dhan kastaba leh oo taariikh fog oo soo jireen leh waxaan markaasi asagoo sii wadayo wuxuu yiri badda cas waxay muhiim u tahay biir ganacsiga caalamiga fursadaha hadda iyo kuwa mustaqbalkaba Soomaaliya waxay leedahay qayb muhiim ah oo baddaas kamid ah mana ogolaan doono inta ka kamid ah la qaato ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweyne Xasan markaas hadlayay Soomaaliya ayaa raadinaysa taageero diblomaasiyadeed iyo mid ammaan si ay markaas u maarayso xiisadda kaga furan wadanka Itoobiya xiisadaasi ayaa ah mid ka dhalatay arinta Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xiisadda u dhaxaysa waxay ka dhalatay afgaradkii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ee badda cas halkaas oo uu xiriirkooda ku xumaaday labada dal Muqdisho ayaa qaatay dilaabooyin xoog leh oo diblomaasiyadeed oo ay ku doonaysay inay Itoobiya kaga cadaadiso si ay uga laabato heshiiskaasi sidaas oo waxa qabta xildheerayaal ammaanka caalamiga ah ka faallooda igad midowga Afrika jaamacadda Carabta ayaa dhamaantood iyo qaar kamid ah dalalka reer galbeedka ayaa cadeeyay mowqifkooda ku aadan xiisadda u dhaxaysa labada dal waxayna adkeeyeen in lagu xadgudbay madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya markaanu intaas uga nimaano Masar iyo Itoobiya waxa horay uga dhex taagnaa oo dhexdooda taalay xiisad weyn
oo dhowr jeer ku sigatay inay fooda isdiraan labadaasi dal dabcan taas oo ku dhalatay qaybsiga kheyraadka biyaha ee webiga Niilka kaas oo Qaahira si weyn ay markaasi ugu diidan tahay biyo xireenka Itoobiya ay ka dhisayso markaasi biyahaas Niilka si ay tamar koronto uga dhaliso labada dal Masar iyo Itoobiya ayaa isdhaafsaday hadallo diblomaasiyadeed oo adag tan iyo markii xiisadda cusub ay ka dhex bilaabatay Soomaaliya iyo Itoobiya taas haddaan halka uga soo laabanna bal markaana waxaanu eegaynaa Itoobiya oo yaa faragelinta ay ku wada gudaha Soomaaliya si laba jibaartay waxaana ay moodaa tilaabadan ama qoraal markaa idin xogta idin la wadaago inaad si caroon doontaan faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhaqdhaqaaqyo ay ciidamada markaasi Itoobiya ay ka bilowday qaybo ka mid ah gobolka Gado taasoo la xiriirta xiisadda badeed ee kala dhaxaysa Soomaaliya kana dhalatay heshiiskii badda warkaanu helayna ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa oo saacadihii ugu dambeeyay ka soo gudbeen xadka uu gobolka Gado la wadaago waa gobolka Gado Itoobiya kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo hor la ka bilaabay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi mid ka mid ah waxgaradka deegaanka oo lagu magacaabo Maxamed markaas waa Maxamed Aadan Ruukow oo la hadlay telefishinka Shabeelle waxa uu sheegay in ciidamadani aysan ahayn kuwii hore u joogay gobolka Gado sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamadani ay markaasi aad u qalabaysan yihiin isla markaana ay wataan diyaaradaha helicopterka loo yaqaan sida uu hadalku u dhigay Hoosow oo telefishinka Shabeelle TV la hadlayay ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka culus sidoo kalena wata helicopter waxa ay ku soo qulqulayaan buu yiri buundada u dhaxaysa dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya iyagoona u soo gudbaya dhanka Soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ruukow waa ninka la yiraahdo Ruukow ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidamadani ay isku sii fidinayaan gobolka intiisa kale taasoo cabsi ku abuurtay dadka deegaanka sidoo kale waxa uu ciidamadani cusub kuwa aan horey aan u joogi jirin deegaanka ayuu hadalkiisa sii raaciyay marka laga yimaado in Soomaaliya ay dunida xal ka raadinayso iyo sidoo kale garab iyo gaashaan sidoo kale Itoobiya ay difaac ku jirto dhinaca kale maanta qoraal ayaa ka soo baxay waxa uu ka soo baxay xalay dabcan la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ninka la yiraahdo Redwan Hussein oo ah nin soo caan baxay intuu xiisadan Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa ay taagneed dabcan hadalkiisa waxa laga dhanansan karay in Itoobiya sidii maalmihii hore ay u hadlaysay si ka dabacsan xoogaa ka dabacsan ayuu hadlaysay bal xogta ila hadliyo aan idin dulmaro iyadoo wali ay taagan tahay xiisado ka dhalatay heshiiskii is-afgarada ee kowdii Janaayo iyo Addis Ababa ay ku kala saxiixdeen Somaliland iyo Itoobiya ayaa waxa soo baxaya hadallo cusub oo u muuqday in Itoobiya ay si ka duwan sidii hore ay wajahaysan arrinta la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Redwan Hussein ayaa bartiisa X oo hore Twitter loo oran jiray waxa uu ku soo qoray qoraal u muuqda in Itoobiya ay ka hadlayso halka ay ka taagan tahay arrinta madax bannaanida ee Soomaaliya iyo sidoo kale durxul ku socda Masar iyo Soomaaliya oo uga yabahay garab istaag military iyadoo Masar iyo Itoobiyana ay ka dhaxayso xurguf ka dhalatay biixraankaasi sidan hore baan kugu sheegnay Redwan Hussein waxa uu bartiisa X ku qoray ka go'naanshaha Itoobiya ee nabadda iyo ammaanka Soomaaliya waxa lagu muujiyay buu yiri dhiig iyo dhididka wiilasheena iyo sidoo kale gabdhaheena qiimaha leh Itoobiya iyo Soomaaliya daris sohodin wadaag kaliya ma aha buu yiri laakiin waa dalal isku bax ah oo wadaaga luqad dhaqan iyo dad xiriirka isku keen hayana wuxuu yiri waa mid xoog leh himilooyinku waa mid isku xiran buu yiri oo aan la kala saari karin heshiiskii is-afgarada ee Somaliland aan la yeelanayna waa mid markaasi iskaashi iyo bahwada kaasoo Itoobiya maran u siinaya biri badda marka xogga ganacsiga laga hadlayo biri ee maahan in aan dhul ku darsanayna ama markaasi aan la qaato biri madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya aynu qaadano iyo badeeda sidaas uu hadalkiisu yiri wuu sii wada qoraalkiisa isagoo ka hadlayay dalalka kale ee uusan markaasi magacaabin laakiinse loo arko in ay isbarbar taagan yihiin oo garab u yihiin dalka Soomaaliya taageeradana u muujiyay wuxuu yiri walow ay taasi xaqiiqada tahay yiri jilayaasha qaar oo aan taageero sida u weyn biirisiin Soomaaliya xilligii ay baahida weyn qabtay ay hadda iska dhigaya yiri saaxiib dhab ah laakiin waa xiriir gelinaya biri ama habiye xiriir saaxiibtinimo laakiinse waa cadowtinimo ay u qabaan Itoobiya
sidaas waxaa yidhi dabcan ridwaan oo qoraalkaasi dheer soo qoray waxaana u muuqataa inuu masarna si ula hadlay soomaaliyana si ula hadlay sidoo kalena uu muujinayo in etoobiya aysan bad iyo dhul ay qaadata aysan raadinayn meel ganacsi oo ay halkaasi ku ganacsata ay raadinayso intaana soo gabagabayna xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war cusub oo ka soo saaray xiisada diblomaasiyadeed ee haatan u dhaxaysa dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo ka dhalatay heshiiskii badda Addis Ababa iyo Somaliland ay kala socdeen Guterres ayaa ku booriyay labada wadan in ay isdejiyaan isla markaana ay furaan wada hadallo lagu qabanayo xiisada dhexdooda xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in ay lama taabtaan madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya ayna tahay mabaadi caalami iyo sidoo kale una baahan in la dhowro sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay inay wada hadal ku dhamaan doonaan xiisada si looga qabto buu yiri dagaal ka qarxa gobolka arintaas oo Guterresna ayaa xusay sidoo kale inay muhiim tahay in la dhowro badqabka kala duwan oo ay hormuudka u yihiin Mareykanka Shiinaha midowga Yurub midowga Afrika ee jaamacadda Carabta ee ku aadan in la ixtiraamo madax banaanida Soomaaliya hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo cirka isku sii shareeraya xiisada badda ee u dhaxaysa labadaasi dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa muuqaalkeena ama warbixinteena maantay waad ku maasantihiin daawashadiina balanteenu waa warar iyo sidoo kale xogii ugu dambeeyay caalamka oo aad halkan ka heshaan